السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحنا كسند وديال كان وربعين سومال وين برودكشن كل سنة هذا وركينا ساكي قطبان وكسو قادة دون برنامج جريد كانوا وحكم ذا وركي وجود بيه مدحبينه هو شريف شيخ أحمد أوور علوسكو قاعد حصل شيخ مدحبينه شريف شيخ أحمد وكهالله أريم بدن أو لحلي حالة وضن كا وحنديس وجود بين دونا شريف أو فشل كالدجال كالشباب كويدي حسن شيخ سونا صار ور علوس وآدو وين ونديس وجود بين دونا قطبة كلام ساكي دلو ودايق دونا وركنا كنا ودون وحكم ذا قوله وذا تشي قرن ومدحبينه حسن شيخ وهو جامني وصل ياب للوبه دلي يفعل أن عادي هن وكذا لطي وركسوا بحي حلي دولة وضع كمريكان كا وكوا جهان شركة قلها وضع تشي قرن وندي سوق بن دونا سيدو كلو حندي سوق بن دونا وركنا قريب كنا قد دونه معلومات كي يحوجه وجودا في دولة تايوان ووفد عرس ودرس الصومالي لان هذا وفد جان يحوج ديريا ولا جهلي أيانو يدي سوق بن دونا معلومات كنا يا كود داود تار قداس يوحي نقص وكرنا أيانو سوق بن دونا هدي اللوين يدمو ساكي وصباح سبتة تاريخ دونا وحيكون بيجنت طبعا كبيش ميسر نتكلموا كوشان إلى باتن وركنا أيانو كود دونا كم لانو وركنا إسلام مركز نوجه الرئيسينو مدحبيني هراء صومالي شريف شيخ أحمد أو ور كرولكو قاضي مدحبين حسن الشيخ ذي ما يابل نوجدي مدحبين حسن الشيخ نكو ذي فشل كدجال ككدنا الشباب هذا بقى waxaanu idin daawodsiin doonaa qayb kamid ah hadalkii yaabka lahaa ee madaxweyne Shariif uu ku weeraray madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Shariif oo runta ka sheegay xaaladda wadanka laakiin waxaan si hordhac idin kula wadaagayaa qayb kamid ah khudbadiisa iyo waxyaabihii uu ka yiri xaaladda wadanka madaxweynihii dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed marna hormuud u ahaa kooxihii badbaado qaran ee farmaajo talada ka tuuray ayaa waxa uu soo bandhigay ama uu qabtay shir jaraa'id oo uu hoygiisa uu ka dagan yahay magaalada Muqdisho uu ku qabtay waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee wadanka madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka digay bohol uu sheegay in dalka laga tuurayo waxa uu ku dhawaaqay badbaadinta dalka Xasan Sheekh ayuu ku eedeeyay in dawladdiisii ciidamadii farmaajo uu ku wareejiyay ee 10,000 kor u dhaafayay kuwa kaliya tababarka ka soo dhameystay dalka Eritrea iyo dalal kale oo dawladda Soomaaliya taageera ayaa uu sheegay in sida ay tahay uusan kaga faa'iideysan madaxweyne Xasan Sheekh Shariif ayaa amaan ugu qubiyay dawladdii tan ka horeysay oo ciidamo u tababartay dalka ciidamadaasi waxa uu tilmaamay in Xasan Sheekh sida ay tahay uusan kaga faa'iideysan hadaba bal ila daawo qayb kamid ah khudbadiisa sidaas oo kale waxaa nasiib darro ah meeshii ummadda la isu keeni lahay in maanta haddana la sii fogeeyo qaar ka mid ah gobolladii horeba dhibaatooyinka uga dhaceen oo ay ka mid tahay Jubbaland waxaan wada ognahay in isku day inqilaab lagu sameeyay ciidamo loo diray ciidamadii qalabka sida ee meesha taga ay gartaan waajibaadka iyo hadafkii loo tababaray inaysan ahayn inay walaalahood kale oo difaaca kula jiray ay soo weeraraan maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro maamul la soo dhisaya runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin aadan kala ku lahayn inaad tiraa maamul aan ka soo dhisaya waa nasiib darro bilcagsi waxay ahayd inay ka waantoodaan u soo jeestaan inay walaalaha soo jiitaan kaashadaan dadka ay suuragal tahay inay gacan ka geystaan si loo waajaho marxaladda adag maxaa yeelay waxay ku aadan yihiin deegaan al-shabaabka uu ku badan yahay ku xoogan yahay mas'uuliyaddooda ay qaateen maanta waxay u baahnaan dhiirigelin arrinta kale oo iyadana muhiimka waxa waaye oo runtii aad iyo aad aan uga xumahay amniga saameyn ku yeeshay siyaasadda xamada maxaa yeelay dawladdu muddadii la soo dhaafay waxay aad ugu mashquulsaneed dastuur bedelid iyo campaign mataqaanaa doorasho oo aan waqtigiisa la joogin oo aad ogtihiin maanta magaalada Muqdisho in la leeyahay doorasho ka jirta iyadoon dadkooda heshiis ahayn iyadoon wax la isku ogeyn iyadoon la xadidin caasimada maqaamkeedii maxaa yeelay halkaan waa meel ay wada fiirsanayeen ummadda Soomaaliyeed marka doorasho ka dhacayso waa in maqaamkeeda la xadidaa waa in dadka Soomaaliyeed dhamaantoodba ay garan karaan maqaamka magaalada Muqdisho maxaa yeelay culaysyada jira maanta iyo kala socodka jira meesha lagu miday karo waa caasimada Soomaaliya waxaan aaminsanahay dadka degan ee Soomaalida ah arrintaas waxay u sameeyeen tabxiyaad ama nafurno waaweyn u sameeyeen in marka ayaga la sii qaybiyo oo madax la isu geliyo runtii ayada laftigooda waa nasiib darro in la magacaawday guddiyo
aan heshiis lagu ahayn oo guddi hal xisbi ka socda ah in sharciyo aan waafaqsanayn dastuurka la sameeyay welina lagu sii socdo ayna yihiin waxa runtii sababay maanta meesha la joogo ee amni darrada ah ee kala qoqobnaanta in la joogo sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan waxyaa farta ku fiiqo dagaalka maanta ka jira dalka Soomaaliya dagaal qabiil ma aha waa dagaal u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed iyo argagixiso ku soo duushay oo laba qayb ah laakiin isku meel ku dhamaanaysa qaybta koonfurta waxaa jooga oo aad uga howlgala nimanka la yiraahdo la magac baxay al-shabaab dhinaca bariga na waxaa ka howlgala nimanka la yiraahdo ISIS runtii Puntland waxaan ugu hambaleynaynaa dadaalka iyo nafqurka ay sameeyeen iyo guulaha ay ka soo gaareen waxaan la garab taaganahay support maxaa yeelay Soomaali meel joogtaba waa isku cadow wax kala qaybin karaana ma jiraan marka waxaan leenahay guuleysta dadaalkiina si laaba waxa ballan oo ah in laga guuleysto dadka ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dawladana waxaan ugu baaqaynaa maanta waxa la joogaa maalintii dadka isugu yeeri lahaydeen tala dhageysan lahaydeen tala xumadiini meesha ay nageyso waa aragtaan soo laabta aqligiina soo laabto ha ku mashquulina kursi isku dhajina waxa ku mashquushaan inaad kamera dhalasaan waajibaad leeyin doortay waxaan idin sheegayno amaana idin tarnama laakiin la xajaceel wuxuu naga hayaa dalka iyo badbaadadiisa iyo wada jirkiisa hadii madaxda dalka ugu sareysa ay ku mashquulaan inay aarsadaan ama ficiltamaan meesha hadda la joogo marka si foga la gaaraya marka waxaan leeyahay ficilta ka joojiya u soo jeesta waajibaadka qaran ee leedin doortay dalkan asagoo midaysan inaad hogaamisaan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wahagaag maxaa kaaga baxa khudbadda madaxweyne Shariif aragtida hoos ayay nagu reeb kartaa golihii wada tashiga qaran si la yaab leh ayaa loo bahdilay dawladda Mareykanka ayaa xalay inta ay war soo saartay ayaa golihii wada tashiga qaran ee madaxweyne Xasan Sheekh ugu weynaa waxa ay ku tiri waxa aad ku shirteen iyo natiijadii soo baxday waa waxba kama jiraan inta ay maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo maamul goboleedyada kale golaha wada tashiga qaran waxyaabihii ay soo saareen Mareykanku wuxuu ku macneeyay golo aan loo dhameyn wax walba oo golahaasi ka soo baxana Mareykanku waxa uu sheegay inay yihiin kuwa aan u daneyneynin Soomaaliya oo aan la qaadan karin warka Mareykanku wuxuu imaanayaa iyadoo Xasan Sheekh iyo sidoo kale maamulada taabacsan ee magaalada Muqdisho inta ay ku shireen ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban kuwaas oo qaarkood lagu taageerayo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud lagu aqoonsanayo maamulka ICC qaatumo sidoo kale tana looga hadlay duulaanka dhan ah maamulka Jubbaland haddaba Mareykanka oo u hiilinaya dhinacyada siyaasadda ee ka soo horjeeda Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh in uu ka dhabeeyo balanqaadkii uu sameeyay ahayd in Google siyaasadeed uu fidinayo dhanka kale natiijada shirkiga golaha wada tashiga qaranna waxba kama jiraan ayay ka soo qaaday safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya arintan ayaa dhabarjab xoog leh waxay ku noqon kartaa dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba warka ka soo baxay Mareykanka iyo sida la yaabka leh ee uu bahdilay golihii uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka isla markaasina waxba kama jiraan ay ugu tilmaamtay safaaradda Mareykanka inta ay sii shargareysay nuxurka warmurtiyeedka dhammaan natiijadanina ay ku tilmaamtay kuwa aan la qaadan karin oo ay tahay in ay muhiim tahay in saamilada siyaasadeed ee dalka ay ku mideysan yihiin aragtiyada muhiimka ah ee looga arsanayo xaaladda siyaasadeed midda amni iyo sidoo kale tan guud ee wadanka Mareykanka ayaa arrimaha la yaab kale waxa kamid ah inuu ku tilmaamay golaha wada tashiga qaran inay qaadeen tallaabo aan u daneyneynin dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu dambeyntiina dawladda wadanka Taiwan waxa la soo warinayaa inay sii wado dadaaladeeda ay ku garab taagan tahay Somaliland iyadoo horaan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay in wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan ay ka celiso magaalada Hargeysa hadda waxa la sheegayaa in wafdi culus oo Taiwan ah ay ku wajahayiin magaalada Hargeysa ee Somaliland tanina waxa ay qayb ka tahay dadaalada dawladda Taiwan ama dawladda aanay aqoonsaneen ee qaramada midoobay ee Taiwan ay ku sii kordhinayso dadaaladeeda la xiriira iskaashiga dhinacyada badan ee kala dhaxeeya Somaliland iyo Taiwan ba waxa ay raadiyaan inay helaan aqoonsi haddaba in ay balanqaado wafdi culus ay u dirayso Hargeysa ayaa waxa la eegayaa nooca jawaab ay dawladda Soomaaliya ay ka bixinayso haddaba horay dawladda Soomaaliya waxay u mamnuucday in dhulka Soomaaliya oo ay Somaliland ku jirto in lagu yimaado baasaboorka Taiwan
taasi oo ay dawladdu ku mudatay hajabaad kulul oo kaga timaaday dhinaca Mareykanka hadda wafdi culus oo Taiwan ah ayaa la qorsheeyay inay tagaan magaalada Hargeysa halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro warkaas oo idil aragtay hoos nugu reeb wararkeena saaka wanaagsan